شاء الله تعالى kelmadaydu waxay noqon doontaa oo waqtigeedu uu kooban yahay ciwaanka laynoo tilmaamay ee rasuulullaahi raxmatul muhdaat rasuulka ilaahay waa naxariis allah subxaanahu wa tacaala uu u hibeeyey khalqiga u hibeeyey shakhsiyadan aynu rabno inaynu ka sheekayno 15 daqiiqo iyo 20 daqiiqo iyo saacado kuma soo koobi karno waa shakhsi allah subxaanahu wa tacaala uu doortay khalqigiisana alle subxaanahu wa tacaala uu ka doortay oo doorashadii ilaahay baa ku dhacday khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fadila wuxuuna ku karaameeyey oo ku sharfay oo ku maamuusay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ku aamino risaaladii iyo waxyigii iyo fariintii khalqiga la soo gaadhsiinayay fariintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga uu soo dhiibay ee khalqiga la soo gaadhsiinayay nebi maxamed lagu aaminayna waa raxmad iyo naxariis allah qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin shaqada nebi maxamed baa la tilmaamayaa iyo wadiifadiisa alle wuxuu leeyahay kumanan dirin uunka iyo caalamka inaad naxariis u tahay mooye wax kale kumanan dirin waxyiga loo soo dhiibay baa naxariisa dhaqanka iyo habdhaqanka nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee waxyiga uu u fasirayay khalqigana u gaadhsiinayay oo qowl iyo ficil ah ayaa iyada lafteedu naxariis ah walidaalika baa nebigeenna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh isagoo naftiisa inoo tacriifinayo ina baraya oo wuxuu leeyahay xadiiska alimaamu daarimi fii sunanihi uu ku warinayo bayhaqina fii shucabi aliimaan uu ku warinayo cabdurasaaqna fii musanafihi min xadiisi abi hurayra radia allahu canhu nebigu wuxuu ku leeyahay inamaa ana raxmatun muhdaat anigu waxaan ahay naxariis laydiin hibeeyey baan ahay buu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam hibada yaa bixinaya allihii subxaanahu wa tacaala khalqiga abuurtay baa bixinaya waxaa hibe ahaan loo siinaya deeqda ah ee minada ilaahay ugu deeqayo khalqiga ugu deeqayana waa risaalada iyo waxyiga nebi maxamed uu xambaarsan yahay saa darteed baa nebigu wuxuu leeyahay inamaa ana raxmatun muhdaat anigu waxaan ahay naxariis laydiin hibeeyey baan ahay waa hibadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo mabaadida uu waday khalqiga uu gaadhsiinayo waana raxmadda iyo naxariistaas allah baa rasuulkiisa markuu ka warramayay ina barayay ayuu ilaahay wuxuu ku tilmaamay 2 magac oo aada iyo aada u qiimo badan oo asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mid ah laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa lagu tilmaamay iyadoo nebiga layna barayo iyadoo shakhsiyadan laynoo qeexayo iyadoo muwaasafaadkiisa iyo tilmaamihiisa khalqiga la barayo gaar ahaan mu'miniinta si gaara loo barayo baa ilaahay wuxuu leeyahay waxaa idin yimi rasuul xaqiiqe ah ay dhibayso ku adag tahay waxa idinka idin dhibaya mashaqadiinu ay ku jirto kaasoo idin turid badan oo idin naxariis badan buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala magacyada nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh magacyadiisa markuu ina barayo oo magacyadiisa uu tiriyey waxaa ka mid ahaa wa nebiyu towbati wa nebiyu raxma asmaada nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo magacyadiisa waxaa ka mid ah nebigii towbadda sababtiisa lagu aqbalayay iyo nebigii alle subxaanahu wa tacaala naxariista alle uu soo dhiibay raxmaddana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo naxariista
alle uu ku galladaystay ee tilmaan iyo sifo uu uga dhigay. saxaabadii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baa ka markhaati kacay. in ka badan yacni markaa boqolaal saxaabada nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ka mid ayaa habdhaqankii nebi maxamed ay la noolaayeen iyagoo ka turjumaya bay ka warrameen naxariista iyo turitaanka iyo raxmadda nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waxaa kutusinaya xadiiska bukhaari fi ladab almufrad uu ku warinaya min xadiisi anas ibni malik baa wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam raxiiman laa yaأtiihi axadu ila wacadahu waanjasa lahu in kaana cindahu. wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa mid naxariis badan. cidda nebi maxamed kaaga warramaysa waa khaadimkii nebi maxamed oo 10 sano u shaqaynayay dhaqankii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo akhlaaqdiisii iyo habdhaqankii uu bulshada ula dhaqmeeyeyna soo guurinay. wuxuu ahaa nebigu mid naxariis badan ayuu ahaa. habdhaqankiisa wanaagsan waxaa ka mid a ruux umaanu iimaaneyn ilaa waxaa nebi maxamed gacantiisa ku jira ee yacni markaa dheef adduun ah ayuu wax ka helayo. nebigu ballan buu u qaadayey, ballantana waa u fulinayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh in kaana cindahu. haddii waxa uu ballan qaaday wax nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh agtiisa yaala, shaksi ilaahay laabtiisa uu waasiciyey oo weji furan iyo qalbi furan ummadda kusoo dhaweynaya oo gallad iyo haddii ilaahay ku ronya gacanna ugu daraya, bini aadamka inta badan lagama helo. ma laga helaa bini aadamka inta badan lagama helo. dad ilaahay subxaanahu wa tacaala u doortay oo sida nebigeenna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo kale ah uun baa laga helaa tilmaamaha noocaas. shicaarka iyo astaantiisa iyo tilmaamaha nebi maxamed lagu yaqaanaa waxay ahayd raxmad iyo naxariis. raxmaddiisaasi waxay gaadhayso ka wada faa'iidaysanayey gaal iyo muslimba waa ka wada faa'iidaysanayeen, bal noolaha iyo nafleydoo dhan baa ka faa'iidaysanaysay, xataa xayawaanaadka ayaa raxmadda nebi maxamed ay gaadhaysay. الدولابي في الكنى وحكوري أبو نعيمنا في المعرفة وابن عساكر في التاريخ اللي هذا الصحابي عمرو بن حبيب اللي هذا اللي رضي الله عنه مرفوعا خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وحاهوغي أيان درو إيا النصيب درو أي كل عضي أدون qalbigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala basharka aanu raxmad iyo naxariis u gelin. nebi maxamedku marka ay aflagaadaynayaan waa midka shicaarkiisu u ahaa ruuxa naxariista iyo raxmadda basharka laga qadiyey, waa ruuxa ayaan darrada iyo nasiib darradu ay ku dhacdeen. abu daawud iyo tirmidi waxay warinayaan shicaarka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo raxmadda siduu u ahaa. wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu camrin radia allahu canhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هو نحريستا والرحمة دود إيا اللطف دود إيا النحريس دود وخلقك أي قادو با إلهي النحريستا ونحريستي سأوهي بيا ونحريستا كوا أرلدا بحري ذا كل نور الله السماوات يخلقي سككر يا إدين حريصنا. النبي صلوات الله وسلامه عليه مرر بدن بالرحمة وكهل لي وحديث سنة سادات فيرس وحكم إذا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يعني وحكم إذا روح عن مد كيغير حريصا نجمد معها كيغ وين وينين. نبى مجالس النبي محمد خيرك إيه صنها وكفى فيني صحابتي سيجيلك وتربييني وكورا بني عيلك صافقة أيو نوين وضيع صو طلطلع بصدي مركز الله واسعين ويفرقي بالله بلاني واي نبي بسدا سكير نلا يا بي النبي محمد المها دون كان أيام وحكوا أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة ميانا نو وحكوها ننكرا
qalbigaaga haddii ilaahay naxariista uu ka yani markaa uu ka qadiyey bal gaaladaa raxmadiisu ay gaadhaysay xataa acdaa'uhu cadowyadii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo kuwii la dagaalamayey kuwii dhiigga ka daadiyey kuwii dhoollihiisa jejebiyey baa rasuulkeenna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa la yidhi habaar markaasuu yidhi la iima soo saarin inaan mid wax nacdala oo wax habaara aan ahay ee waxaa la ii soo saaray raxmad iyo badbaado iyo samata bixin khalqiga inaan mugdiga ka saaro iftiinka iyo nuurka iyo iimaankana u saaro imaamu muslim fii saxiixi iyo axmed waxay warinayaan min xadiisi abi hurayra radia allahu canhu qaala qiila yaa rasuula allah udcu lilmushrikiin gaalada habaar baa layidhi markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi qaala inii lam ubcas lacaanan inamaa bucistu raxma la iima soo saarin mid wax nacdala inaan ahay laakiin waxaa la ii soo bixiyey raxmad iyo naxariis baa la ii soo saaray buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaayo kale bukhaari fii taariikhihi uu ku warinayo inamaa bucistu raxma walam ubcas cadaaban waxaa la ii soo saaray raxmad iyo naxariis cadaab la iima soo saarin inaan dadka cadaab iyo halaag ugu duceeyo buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xagga ixsaanka iyo habdhaqanka wanaagsan iyo dulqaadka iyo sabirka iyo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi raxmadda iyo waxyigu inay dadka gaadhaan sida uu uga fikerayo fiir cadowgaagii oo dhibaato ku gaadhsiiyey baryada nebi maxamed oo la ajiibayo samadu u furan tahay haddana nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kama aarsan inii lam ubcas lacaanan inamaa bucistu raxma naxariis baa la ii soo saaray buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam haddaan u gudubno bukhaari iyo muslim waxay warinayaan abu hurayrana laga warinayaa qadima linabiyi sala allahu alayh wasalam dufayl ibnu camr addawsi wa asxaabuh dufayl ibnu camr addawsi oo qabiilada dows ka tirsanaa iyo asxaabtiisii oo dacwo uu nebi maxamed u diray oo fariin iyo risaalo loo dhiibay baa nebiga u yimi markaasay waxay yidhahdeen faqaaluu yaa rasuula allah ina dowsan casat wa abat dows ilaahayna way caasiday dacwadii iyo risaaladii iyo fariintii xaqa ahayd iyo dhambaalkii aanu u wadnayna waa diideen maxaa laga doonayaa marka fadcu llaha calayha habaar inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni alle subxaanahu wa tacaala uu jirid gooyo oo u baabi'iyo markaasaa faqiila waxaa layihi halakat dowsun dows waa halaagsantay dows waa halaagsantay faqaala wuxuu yihi allaahuma hdi dowsan waأti bihim ilaahu dows hanuuni oo allow keen iyagoo hanuunsan qofku wuxuu wax kugu tarayaa wuxuu wax kugu anfacayaa wuxuu yacni garab iyo gaashaan kuugu noqonaya inaad iimaanka iyo islaamnimada aada ku walaalowdaan nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa shaksiga noocaasa ee raxmaddiisa iyo naxariistiisa iyo ludfigiisa ay ka markhaati kaceen kuwii dhowaa iyo kuwii fogaaba ay ka markhaati kaceen haddaynu suwar ka mida aynu soo qaadano naxariista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh naxariista nebigu khalqigoo dhan bay wada gaadhaysay weliba naxariistiisu waxay aada ugu sii badnayd dadka bulshada qeybaha sharaa'ixda bulshada ka mid a ee markaa dhibta u nugul sida ciyaalka iyo dumarka iyo araamisha iyo agoonta dadka noocaas anas ibnu malik wuxuu leeyahay kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam arxamu nnaasi bilciyaali waasibyaan ilmaha iyo caruurta midka ugu naxariis badan buu ahaa halka reer galbeedku maanta hooyo 6 caruura dhashay iyagoo cadaalad sheeganaya ayagoo raxmad sheeganaya ayagoo caalamulislaami dadka ka didinaya oo ka soo qaxa leh hooyo 6 caruura dhashay oo caanuhu ka da-ayaan ay ilmaha ka qaadanayaan nebi maxamed naxariistiisa waxaa ku tusaya wuxuu aada u muraacaynayay axwaasha iyo xaaladaha dadka xataa cibaadaadkii iyo takaaliiftii sharciga ayagoo gudanaya ayaa nebi maxamed naxariista dadka uu faraya fii saxiixayn min xadiisi abi hurayra
salaadii iyo cibaadaadka aynu tukanayno innagaa dani inoogu jirtaa adduuni iyo aakhiraba faa'iidada iyo natiijada wanaagsan innagaa helayna haddana imaamkii ina tujinayay buu nebigu la hadlayaa wuxuu leeyahay idaa sallaa axadukum linnaasi falyukhafif faina fiihim aldaciifa walsaqiima walkabiir midkiin markuu dadka tujinayo salaada hau soo koobo raxmadda iyo naxariista fiir ina waxaan odhan lahayn waxaa weeye salaada dadku ama ha tukadeen ama ha iska tageen waxaa dadka ku jira kii tabarta darnaa iyo kii jiranaa iyo kii weynaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bukhaari fii saxiixi iyo abu daawuud iyo keyrkood waxay warinayaan min xadiisi abi qataada wuxuu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inii la aquumu fi salaa uriidu an utawila fiiha salaadaan galaa anigoo doonaya salaaddii inaan dheereeyo fa asmacu bukaa sabiyi waxaan maqlaa ilmaha yar oohintiisa dumarkiibaa salaada nebiga la tukanayay ilmihii yaryaraa iyo ubadkii yaryaraana way xambaarsan yihiin ilmaha yar oohintiisaan maqlaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka oohinta ilmaha dareenka iyo qalbiga nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ay gaadho wuxuu nebigu yidhi yani faatajawasu fii salaatii karaahiyata an ashuqa calaa ummihi salaadaydaan soo gaabsadaa necbaysi iyo kohosho aan necbaysanayo ama aan kohanayo inaan hooyadii ku dhibo ayuu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa suwar yani qeyb ka mida naxariistii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu xataa hooyadaa ilmaha yare ay dusha ku sito oohinta iyo erayada uu ka maqlayo qalbiga iyo dareenka nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxbay ka bedelaysay waxaa la mid ah wufuudda u imaanaysa iyo dadka tacliimta sharciga uu barayo ayaga laftooda wuu muraacaynayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska bukhaari fii saxiixi uu ku warinayo abu daawuud iyo keyrkiina ay wariyaan malik ibn alxuwayris ayaa wuxuu leeyahay waxaan la socday wafdi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam fii nafarin min qowmihi nebi maxamed baan u tegey isagoo cilmi iyo xaqii inuu fahmo iyo diinta inuu barto iyo inuu fariinta waxyiga uu soo qaato ugu tegaya anigoo la socda jamaaco qoomkaygii ka mid qabaa'ilka carabeed wufuud bay soo dirsanayeen markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay wa kaana raxiiman raqiiqa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa mid naxariis badan isla markaana turid badan waa saxaabigii labaad wuxuu leeyahay markuuna arkay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh falamaa ra'aa shawqana ilaa ahaaliina baahida iyo kalgacalka iyo hilowga aanu u qabno xaasaskaygii markuu arkay ayuu wuxuu yihi qaala wuxuu yidhi irjicuu fakunuu fiihim wacallimuuhum yacnii u laabta xaasaskiinniyo dhexdooda ahaadoo diinta iyo cilmiga sharciga bara saasuu nebigu ku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wasalluu faidaa xadarat الsalaatu falyu'adin lakum axadukum walya-ummakum akbarukum hadday salaaddu idiin soo gashana habdhaqankii salaada iyo nebi maxamed qaabku u tukanayay waad aragteen nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku yidhi salaada yani markay idiin soo gasho ruux idinka mid a haydiin aadaamo kiina idinku weyna haydin tujiyo waa suwar kooban oo ina dareensiinaysa raxmaddii iyo naxariistii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddaynu nidhaahno shamaaishii iyo habdhaqankii nebi maxamed aan ka sheekayno hal muxaadaro iyo hal darsitoonna laguma soo koobi karo intaas waxaan rabaa inay muqadamo iyo gogoldhig u noqoto mowduuca insha allahu tacaala ay qaadaadhigi doonaan ama hordhac u noqoto culimmada iga dambaysa ay qaadaadhigi doonaan allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cimrigeenna inuu caafimaad ku lamaaniyo cilmigeennana camalfal uu ku lamaaniyo cimrigeennana alle subxaanahu wa tacaala taqwo iyo alle kacabsi uu ku lamaaniyo wajazaakum allahu khayra